Bismillah suma salaatu wasalaamu calaa nabiyina Muhammad. Saaxiibada sharafta leh ee ku xiran channelkayga Cilmi Bari Channel, waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada darsi cusub oo English ah oo grammar ah ku saabsan nouns oo ah magacyada. Waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaan nouns oo ah magacyada. Marka hore waxaan isla fiirinaynaa definition-ka magaca. Noun-ku waa word we use erey aan u isticmaalo giving a name inaynu magac ugu bixino a person, qof, place, goob, thing, shay, quality, tayo, idea, fikrad or action ama dhacdo. Iska walba waxa lagu magacaabaa noun magac. Magacu waa erey aan u isticmaalno inaynu magac ugu bixino qof, goob, shay, tayo shay tayo leh macnaha tayadiisaas inaan magac ku siino. Idea fikrad la helay inaan fikradaas magac la siiyo ama action wax dhacay dhacdo dhacdadaas in magac loo siiyo waxaa lagu magacaabaa noun magacyo. Marka magacu wuxuu leeyahay different kinds noocyo kala duwan. Noocyadaas ayaanu markaan ka hadlaynaa. Mid walbana waxaan siinaynaa definition. There waxaa jira marka 5 different kinds 5 nooc oo kala duwan of nouns magacyo ah. Waxayna kala yihiin proper nouns oo magacyada gaarka loo leeyahay, common nouns oo magacyada guud la isla wadaago, collective nouns oo magacyada wadareedka ah si guud hal magac la siiyo, ethereal nouns magacyada ashyaada, abstract nouns magacyada ka hadla quality-ga iyo state xaaladda qofka markaa uu ku sugan yahay ama shay. Hore aan u socono waxaan ka hadlaynaa midka ugu horeeya oo ah proper noun magac gaar loo leeyahay. Proper noun-ku waa name of particular person magac qof gaar u leeyahay or thing ama shay. Shaygaas magacaas isaga ayuu gaar u yahay. Tusaale waxa u ah Muqdisho is a capital city of Somalia. Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. So Muqdisho waa magac gaar ah wuxuuna gaar u yahay Soomaaliya. So Ali ninka la yiraahdo is our teacher waa macallinkiin. Ali magacan Ali asaga ayuu gaar u yahay cid kale la wadaagto malaha laakiin maybe inay jirto Ali kale oo adduunka ku nool laakiin Ali asaga ayaa kaliya macnaha gooni u leh cid kale oo la wadaagto ma jirto. So marka waxaa jiro magac kale oo ku xigo waxaa waaye common nouns waa magacyada maxaa la dhahaye guud. Common nouns-ku is a name waa magac which we give kaasoo siino to any person qof waliba or thing shay of same kind isku nooc ah or class ama isku level ah. Tusaale city plant oo kale city laba caasimadaha adduunka way badan yihiin so magacaas ay wadaagaan city plant dhir laba dhir yani dhirta way kala duwan tahay noocyo badan ay leedahay laakiin waxay si guud wadaagaan magaca plant dhir. Dog eeyo fara badan adduunka ku nool laakiin waxay wadaagaan magaca dog. Stone ayaa jira eeyo fara badan oo kala nooc ayaa jira different kinds ah oo midab kala aan isku ekayn so waxay wadaagaan magaca stone. Pencils ayaa jira qalmaan biro ah oo qalin qori ah different kinds ah laakiin magacan waxay wadaagaan pencil ah chalk kursi kuraas fara badan ayaa adduunka jirta just waxay wadaagaan magacaas chalk. Nooca kale ku xiga waxaa waaye collective noun oo ah magac wadareed. Collective noun-ku is a name waa magac given to aynu siinayno a person a group of persons koox ashkhas ah or things ama ashyaa considered as whole. Marka koox isu tagtay ama shakhsiyaad isu tagay ama ashyaa isu tagtay ayaan waxaan siinaynaa hal magac. Marka waxaa loo tixgelinayaa inay noqdaan marka as whole si guud ama jamac ama wadar. So marka waxaa lagu magacaabaa magacaas collective nouns oo ah magac iyo wadareed. Just ashyaadii isu tagay ama persons-kii ashkhaastii isu tagay in la siiyo hal magac just waxaa la dhahaa collective nouns oo ah magac wadareed. Marka tusaale aan ka bixino marka there are waxaa jira marka a lot of people dad fara badan in our country ku nool waddankeena. Just marka people waxaan dhahaynaa waa collective noun magac wadar. Just ashkhaastii isu tagay waddankaas dhan ku noolaa waxaan siinaa magaca people oo ah dad. A new government dowlad cusub has been formed ayaa la sameeyay after the elections doorashooyinkii kadib. Government dowladdu waa dad isu tagay just waxaan siinay magaca government oo ah dowlad. So marka haddii magacaas collective noun waxaan dhihi karnaa kaliya markii ashyaa ama persons isu tagaan then ay qaataan hal magac ama la siiyo so waxaan leenahay magacaas waa collective noun. Nouns oo ah magac wadar loo wadaagay waa collective nouns. Marka other examples ayaa jira tusaalooyin kale sida police oo kale committee guddi oo kale cattle
iyo waxyaabaha lamidka ah. I think in la fahmay. Words marka magac nooc kale ku xigo waxaa waaye words material noun maxaa la material nouns are used waxaa loo isticmaalaa to name in lagu magacaabo the matter. Matterna waa naqaanaa in chemistry waa anything wax walbo haddaad has leh mug meel marana buuxin karo wuxuu noqon karaa markaa waxaas maran meesha maran buuxin karo wuxuu noqon karaa wax adag wuxuu noqon karaa hawo waxay noqon kartaa maxaa lahaye liquid dareere adke iyo wuxuu noqon karaa hawo gas. Marka examples waa kana marka waa milk oo hadda taagan matterka weliba qaybta liquidka ah meat qaybta solidka ah coal oo ama qaybta oo solidka ah ee hawada cloth oo ah qaybta oo maxaa lahaye matterka weliba solidka ah. The last one kii ugu dambeeyay oo ah abstract noun magac ka hadlayo quality ama state xaalad or action ama wax dhacay. Marka abstract noun waxaa waaye noun magac denotes quality state or action ayuu ka hadlaa. Tusaale waa kana marka wisdom marka waxaan ku tilmaamaynaa shakhsi tayada uu leeyahay oo inuu wisdom uu yahay inuu aqal uu yahay xigmad qof xigmad u saaxiib ah. Waxaan ka hadlaynaa shay tayadiisa aan ka hadlaynaa oo ah inuu jilicsan yahay softness qof tayada uu leeyahay aan ka hadlaynaa oo honest inuu yahay qof daacad ah. yacni waxaan ka hadlaynaa qof maxaa lahaye stateka marxaladda uu ku sugan yahay oo ah poverty faqri qof waxa uu sameynayo actionka waxaan ka hadlaynaa oo ah lava inuu qofkan hadda qoslayo ama qof qoslayo inuu yahay just waxaa waaye waa abstract noun. So marka darsigeena meesha ayaan kusoo gabagabeynayna aad aa u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa daawashada video please subscribe noo